بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waxaan rabaa inaan salaamo muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed sanadkan u fariisanaya imtixaankii guud muxuu ahaa dugsiga sare. waxaan jecelahay marka hore inaan u hambaliyeeyo ardaydaas muxuu ahaa waqtiga dheer 12 sano ay dadaalka waxbarasho ku jireen. waxaan u rajaynayaa dhammaantood guul inay ka gaaraan imtixaanka. imtixaankan guud wuxuu dhacaa sanad walba bisha 5aad 11keeda. waa imtixaan guud oo waddanka oo dhan ka dhaco lagu qiimeeyo ardayga dhammaynayo dugsiga sare. sanadkan kororsiimo runtii baaxad leh ayaa jirto. sanad walbana sanadka kale ardadu qalin jibinayso dugsiyada sare ka qalin jibinayso way kordhayeen. sanadkan haddii eebbe idmo 33,000 oo arday ayaa u fariisan doonta imtixaankaas. magaalada xamar oo kale miitaal haddaan usoo qaado waa 70 goobood ayaa muxuu ahaa markii sanadkii hore ay ahayd 50 iyo xogo. marka meeshaas ka garanaysaa baaxadda iyo muxuu ahaa imtixaankan uu sanadkan leeyahay markii loo fiiriyo sanadihii hore. wasaaraddu shaqo fiican iyo diyaargarow fiican ayay gashay. si fiicana loogu diyaargaroobay hadday tahay dhinaca muxuu ahaa daabacaadda imtixaanka iyo waraaqyaha lagu shaqaynayo, hadday tahay muxuu ahaa diiwaangelinta ardayda, hadday tahay goobaha in dadka lasii habeeyo. guddiyo kala duwan ayay wasaaraddu suuro gelisay muxuu ahaa oo howlahaas oo dhan qabanayo. dhinaca imtixaanka kuwa qaadaya, dhinaca mataqaanaa kormeerka kuwa samayn doona, guddiga amniga, guddiga muxuu ahaa maaliyadda, waxaasoo guddiya ayaa shaqaynayo. aad ayaan shakhsiyan ugu faraxsanahay sida loogu darbaday loogu diyaargaroobay. runtii aaday u wanaagsan tahay. muxuu ahaa sanadkan waxyaalo badan ayuu uga duwan yahay sanadihii hore. maalan wuxuu wax uga duwan yahay qaabka imtixaanka loo qaadayo. qaabka imtixaanka loo qaadayo waa ka duwan yahay qaabkii hore. haddaad sanadkii hore iyo sanadihii ka horreeyay fiirsid, imtixaanka waraaqda lagu qaadayo oo lagu qoraayo imtixaanka iyo su-aalaha isku warqaday ku qoraay. sanadkan xoogo waa ka duwanaa doonaa. su-aaluna gaara u imaanaan, meesha lagu shaqaynaana gaara u imaanaan. sababtaan saa u samaynayna waxaa weeye in la yareeyo qishka. maxaa yeelay 12 maalin ayaa la daabacayaa imtixaanka markay ay isku jiraan. laakiin markaysi isku jirin waxaa la daabacayaa saacado. marka muxuu ahaa meeshaas xal weyn oo qurxan ayaa laga gaaray oo mataqaanaa horumar fiican ayaa laga gaaray meeshaas. marka imtixaanku waa noocaas. diyaargarowgiisu meel fiican u maraya. muxuu ahaa waxaan rabnaa in arday walba goobtii loogu talagalay uu tago. halkani waa Hirshabelle TV.